kartaa gudaha hore ee barta madow ee baqdinta leh. magaciisa waxa uu ahaa Edgin, waxaana uu ahaa kii baqdinta ku abuuray tuulo yar oo Ameerika ku taala. waa dad qalkan idiin muuqda, kaasi oo muddo dheer aanu maqli jirnay waxa uu ahaa run. Edgin waxa uu ahaa wiil uu dhalay nin feeryahan ah, balse markii uu dhintay aabihiis iyo hooyadiis waxa uu ku noolaa guri kaligiis. gurigaasi oo ku yaalay banaanka beerta qadiimiga ah ee Plainfield ee gobolka Wisconsin. maalinkaasi kadib 1875 markii la waayay gabadhii lagu magacaabi jiray Princess Warren. taliyaha ciidanka ee booqday guriga Edgin waxa ay la tahay arrintu wax sahlan. qofkan aad arkaysaan waxa uu ahaa toorihii ciidanka, waxa uu ka qayb qaatay xalinta arrimo badan oo halis ah, dhammaantoodna waa uu ka badbaaday. maxay kula tahay xaqiiqda naxdinta kugu soo socota ee aanad ka warqabin marnaba halisteeda? xilligaasi Guy ma uusan joogin guriga, waana sababta ay askartu ugu dhaceen guriga. waxayna kala kulmeen waxyaabo baqdin iyo naxdin leh oo aanay meesha ka filanaynin. waxay afka uga galeen bahal dad cun ah oo aad u halis badan. The crime scene was not properly secured by Travis County Police. 2 investigating officers were fatally wounded that day. This is the only known image of Thomas Hewitt, the man they call Leatherface. Buu Edgin oo ahaa wiilkii uu dhalay feeryahankii caanka ah ee Blaine ku noqon karaa dad cun caan ah oo cabsi leh oo ay ku abuurantay xumaanta iyo xiqdiga ah inuu dilo dadka. لم يتغير متجر خردوات الأدوات المعدنية كثيرا بعد مرور 50 عاما. عثرت الشرطة على وعاء استخدمه جين على ما يبدو. waxay heshay askartu dherigii uu isticmaali jiray inuu ku karsado hilibka dadka oo ka samaysnaa lafaha dadka madaxooda. halka in ka badan 22 meyd ah laga helay kabadh iyo miisas hoostood. waxay heleen kursiyo lagu taxay hilibka dadka. laakiin maxay is oran kartaa in uu u bedelay ninkani beeroola ah dilaacan ah? غرفة منهى. gurigan yaad u malaynaysaa inuu leeyahay maxaase ku qarsoon? ثم بدأت القطع بالتكون لتعطي معنى ما. toshashka ilayska dhaadheer markii ay afiyeen askartu waxay heleen meydka Warden
wejigeeda waa la bedelay, madaxeeduna waa uu go'naa, waxaana laga soo laalaadiyay meel iyadoo dilaacyo aad u tiro badan oo naxdin leh ay ka muuqdeen wejigeeda. كانوا في عرين waxay gacanta u galeen bahal halis ah. waxaan ahaa qofka joogay meesha ee duubay fiidiyoyada, waxaan qaaday sawirro iyo muuqaallo. waa intaasay naga caawiyaan inaan gacanta ku dhigno daliilo cusub, waxa sidaas yidhi mid ka mid ah askartii la shaqaynaysay FBI-da. weligay imuu soo marin qof noocan oo kale ah. waqtiyo badan baa jiray oo aan isku dayay inaan ninkan qabto, laakiin imay suurtagelin inaan ninkan gacanta ku dhigo. waxa sidaas tiri madaxii ciidanka FBI-da ee xilligaasi. halka sarkaal ciidankaasi la shaqaynayna uu aragtidiisa sheegay, uma malaynayo inuu la mid yahay ragga kale. waxaan u malaynayaa inay haysato mushkilad dhanka caqliga ah, mana garan karo sababta ilaa ay hadda ku kaliftay inuu geysto dilalka foosha xun leh iyo habdhaqanka noocan oo kale ah. ma garan karo. Gii waxa dhimatay hooyadiis isagoo yar, kadib waxa uu ku aasay beerta guriga, waana tan loo sababayn karo inay ku dhiirigelisay inuu si fudud wax u dilo una aaso, maadaama uu dhammaan dadka uu laayay ay u badnaayeen dumar. waxa uu googoyn jiray jirkooda xubin isagoo ka samaysan jiray dhar. waxaad odhan kartaa waxa uu ahaa nin aad u xanuunsanaya. kaliya tama uu xidhan jirin dharka dumarka, balse waxa uu ku darsaday xidhashada jirkooda oo uu xubin uga sameeyay dhar. Ed Gein kaliya tama uusan ahayn kelmad shar ah, balse waxa uu isku bedelay hadal haynta saxaafadda. gaadhigii uu dadka meydkooda ku qaadan jiray waxa uu noqday mid lagu soo bandhigo goobaha caalamiga ah ee alaabta cusub lagu soo bandhigo ama waxyaabaha cajiibka ah. halka gurigiisina ay gubeen dadkii deganaa magaaladiisa kadib markii uu nin taajir ah isku dayay inuu iibsado gurigaasi. Ed Gein boolisku markii ay gacanta ku dhigeen Ed Gein waxa ay u sameeyeen baaritaan dhanka maskaxda ah, waxayna geeyeen dhakhtarka waalida, halkaas oo lagu ilaalin jiray ilaa intii uu ka dhimanayay, ilaa sanadkii 1924 oo da'diisu ahayd 76 jir, iyadoo geeridiisina lagu aasay meel aan ka fogeyn bartii uu dadka ku aasi jiray, isla markaana ay ku yaaleen qubuuruhu. haddaba qisada Ed Gein ayaa noqotay mid ay aad u xiiseeyaan dhalinyarada. waxa ay samaysteen goobo, kooxo iyo weliba kilaabo ay magaciisa ku xuseen, isla markaana waxa ay dhalinyaradu badanaa booqan jireen xabaashiisa xilliyada dambe ee habeenkii, iyada oo laga sameeyay qisadiisa filmo iyo qisooyin cajiib ah. haddaba adiga ma kula tahay in ninka saas u halista badnaa in uu noqdo tusaale la xuso ama la xasuusto?